haddaan su-aasha jawaabtiisa isku dayo waa yaab iyo naxdin. jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay. مروان وقت ايش هذا اسكت waa eed waa khalad waxaan doortay choice B ayaa dooratay waqti badanna wad haysataa taasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa. Faadmo yar may gar sacabka loo tumo ardayda sacab sidaasi ayay sax ku tahay. sacabka loo tumo ardaydaasi. wacan u wanaagsan daawadayaal Ramadaan Kariim mar kale ku soo dhawaada barnaamijkeeni tartan aqooneedka ee dhexmariyay fasalada 7 iyo sidoo kale 8aad. maanta waxa uu tartan badan dhexmari doonaa labada fasal ee kala 7D iyo 7C oo labaduba ka tirsan qaybta 150ka. soo dhawaada daawadayaal ardaydana waxa la soo dhawaada nasiib wanaagsan laba fasal oo runtii aad u da'yar ba tartami doona. fasaladii hore ee soo tartamay 11 fasal oo hore ayaa wareega xiga u gudbay. idinkuna waxaad ka mid noqon doontaan ama kuwaas ku biiri doontaan midkiina uu ka hadhi doonaa. laakiin muhiimaddu waxa weeye inaad aqoontiina iyo wixii macallimiintiinu idin bareen inaad banaanka keentaan, inaad dad badan oo idin daawanaya aad uga faa'iidaysataan. edeb iyo akhlaaq inta uu tartan ku socdo inaad muujisaan, hadhow tolada shaashada ka daawataan sidii aad ahaydeen, sida tartanka uga qayb qaadateen, sida laydin qiimeynayo. waad mahadsantimaadilay mar kale Ramadaan Kariim soo dhawaada. ardayga su-aasha ka jawaabay isagoo degan kalsooni ka muuqato intuu goobta yimaado ha ka jawaabo. sidii caadadaynu ahayd aayaadka qur-aanka kariimka ayaynu budhig uga dhigi doonaa furitaankeena. waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo Huda Maxamed oo aayaadka qur-aanka inoogu furfuri doonta, kadibna toos ayaynu barnaamijkeena u geli doonaa. Huda yar la soo dhaweeya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. daawadayaal mar kale aad ku celiyo maanta wuxuu tartan dhex mari doonaa labada kalaas ee 7D iyo 7C. macallimiinta iyo garsoorka halkan inoo fadhiya oo runtii ah macallimiinta soo xulay tartankan maadooyinka lagu tartamayo qaabilsanna macallin kasta maado inoo qaabilsan yahay. koonaha waxa inoo fadhiya Sakariya Ibrahim Cabdiraxmaan macallinka maadooyin qaabilsan maadada Ingiriiska, Saad Cabdullaahi Hibe oo aan uga dambeyn doono maadooyinka sayniska iyo xisaabta, Umar Xasan Cabdirasaaq Maxamed Cabdilaahi oo isagana aynu doo fadhiisan doono weydiimaha iyo jawaabaha maadooyinka Soomaaliga iyo Socialka. dhinacayga waxa soo xiga Cabdirasaaq Maxamed Cabdilaahi aan yiraahdo Umar Xasan Cabdiraxmaan macallinka Carabiga iyo tarbiyada ayaa dhinacayga ugu soo xiga. sidoo kale goobta waxaynu kula sugan waa gudoomiyaha tartankani gudoomiye Saciid Yuusuf Xuseen Saciid Carab isna aad buu mahadsan yahay. mar kale daawadayaal waxaad leeyahay Ramadaan Kariim ku soo dhawaada barnaamijkeeni kadis. labada kalaas ayaan jecelahay kalaas walba inuu hal arday ka soo istaago kiina ku hormaraya weydiimaha nasiibkiina aad qaadataan. hal arday iyo hal arday ayaan labada kalaasba jecelahay inuu soo istaago oo baqtiyan nasiibka gacanta geliyo. hal ardayad kalaaska kalena ardayd soo kac nasiibkan qaado kiina ku hormaraya. kalaas 7C ayaa ku hormaray weydiimaha. waxaa lagu tartami doonaa oo iga xasuusina marar badan idinku soo celceliyay 7 maado ayaa lagu tartami doonaa, waxaana ay kala yihiin maadooyinka sayniska, Soomaaliga, tarbiyatul islaamiya, Ingiriiska, xisaabta, social iyo sidoo kale Carabida. maado walbana class walba 2 su'aalood ayaa laga weydiin doonaa. guud ahaan inta tartanku socdo class walba waxaa la weydiin doonaa 14 su'aalood. labada class marka la isu geeyna 28 su'aalood ayaa la weydiin doonaa. haddii 28 ka su'aal lagu kala bixi waayo sida marar horeba soo dhacday wareeg xiga ayaa la isla aadi doonaa. waad mahadsantiin mar kale soo dhawaada. waxaan u yeedhi doonaa ardayga koobaad. maadada koobaad ee lagu tartamaya waa maadada sayniska. macallin Saad ayaan jecelahay inuu mikrofoonka qaato.
ardayada koowaad ee ka socota class 7c ayaan u yeeri doonaa maadada sayniska ardayada koowaad ee 7c ardayda halayla soo dhaweeyo soo dhawow makarafoonka qaado magaca igu bilow rabadaan kariim shaashada hortaadana eeg بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واسف حمدي كان سعودة كلاس كاب 7C وحان إدلي هي رمضان كريم صفاء حمدية يا نقول وحن كلنا رمضان مبروك مع اللي سعد يا صفاء يا نقول بحيا بسم الله الرحمن الرحيم سؤال كوباد ee sayniska waxay odhanaysaa the blood vessel that brings oxygenated blood to the left side of the heart from the lungs is known as A. aorta, P. vena cava, C. pulmonary artery, D. pulmonary vein. hal daqiiqo ayaad haysataa waqtiguna waa ku bilaabmay deganaan kalsooni taxadar haddii aad caawimaad u baahato macali sacad waa ina caawinaya wayna ugu celinaya The blood vessel that brings oxygenated blood to the left side of the heart from the lungs is known as A. aorta, B. vena cava, C. pulmonary artery, D. pulmonary vein. waqtigu waa socdaa ايه ku adkaysanaysa ها waad hubtaa ها ardaydaasi eeda ayay tidhi jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi ardaydaasi may garanin saxabkaa loo tumo jawaabtu dhiida ayay sax ku ahayd dhiida ayay jawaabtu sax ku ahayd ardayda mar kale saxabkaa loogu celiyo ardaygii garta iyo ardaygii garan waayeba waxaan idinka codsanayaa in saxabka loo tumo markan waxaanu yeedhi doonaa class 7d class 7d ardayga koowaad ee usoo istaagaya weydiinta maadada sayniska soo dhawow makarafoonka qaado magacaaga igu bilow rabadaan kariim بسم الله مقعي وابي عبد الفارح وحان لي رمضان كريم macali sacad iyo ardayda ayaan u kala baxayaa Su'aasha labaad ee maadada sayniska waxay odhanaysaa which of the following statements is true? Which one of the following statements is true? Choice A. Arteries bring blood to the heart. Choice B. halkaa qoraalku in yar buu qorsan yahay laakiin waa veins. Veins bring blood with oxygen to the heart. C. Veins carry blood to the arteries. D. Arteries carry blood away from the heart. waqtigu waa kuu bilaabmay hal daqiiqo ayaad haysataa deganaan kalsooni taxadir adoo degan insha allah waqtigu waa soconayaa 20 ilbiriqsi oo ka midii way tageen waqtigu waa soconayaa afartan ilbiriqsi oo ka midii way tageen oo way baxsadeen بيذا bida ku adkaysanaysa ardaydaasi bida ayay tidhi jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa jawaabtaas may garan ardaydaasi sacabkaa loo tumo jawaabta su-aashaasi dhiida ayay ahayd dhiida ayay jawaabta su-aashaasi sax ku ahayd mar kale waxaan u yeedhayaa ardayd ka socota class 7c waa maadada sayniska su-aashooda labaad 7c ardayda ila soo dhaweeya soo dhawow rabadaan kariim magacaaga igu bilow magacaygu waa maan cabdiraxmaan kana socda fasalka 7C waxaan leeyahay ummadda islaamka meel kasta joogaa rabadaan kariim maan cabdiraxmaan iyo anaguna waxaan ku leenahay rabadaan mabruuk macalin sacad baan u kala bixi doonaa iyo su-aasha Way su-aasha saddexaad ee maadada sayniska waxay odhanaysaa the way the body gets rid of waste substance produced by the cells is called the way the body gets rid of waste substances produced by the cells is called choice A excretion,
choice B ejaculation, choice C respiration, choice D reproduction. waqtigu waa kuu bilaabmay maanay. jawaabta su-aashaas waxay tahay e kaad kasanaysaa haa waad hubtaa haa ardayadaasi ee ayay tidhi jawaabta su-aashaasi sidaasay sax ku tahay. sacabkaa loo tumo. ardayad 7D ka socota ayaan u yeedhi doonaa. waa su-aasha u dambeysa maadada sayniska. kala 7D ardayadda ha layla soo dhaweeyo. soo dhawow magacaagana igu bilow. بسم الله مقعي قولي لا على حسن وحنا كسر فيزيك 7D مدة سمارة حنا هاي رمضان كريم annaguna rabadaan kariim baanu ku leenahay. macalin sacad iyo su-aashiisa u dambeysa. waxay su-aasha sayniska ee afraad. The largest excretory organ in the human body is the A skin, B lungs, C kidneys, D liver. waqtigu waa kuu bilaabmay. سيدة ويا waa siida ku adkaysanaysaa ها waad hubtaa ها ardayadaasi waa siida ayay tidhi waana ku adkaysanayaa. jawaabta su-aashaasi ayan daawadayaal wadeegi doonaa. ardayadaasi may garanin. sacabkaa loo tumo. intaa waxaynu kaga iman doonaa maadada sayniska waxaanaynu u gudbi doonaa maadada afka soomaaliga. daawadayaal intaa waxaynu kaga gudbi doonaa maadadii sayniska. 4 su-aalood baa la isweydiiyey. kalaas walba 2 su-aalood ayaa la weydiiyey. 7C oo ku hormartay weydiinta 1 su-aal way garteen 1 su-aalna way garan waayeen. halka 7D labadoodii su-aaloodba ay garan waayeen. waxaynu u gudbi doonaa maadada afka soomaaliga. macalin cabdirasaaq ayaan soo dhaweynaya oo mikrofoonka qaadan doona. 7C ayaan su-aasha koowaad jecelahay inuu soo istaago ardayga uga jawaabaya. ardayada ha layla soo dhaweeyo. soo dhawow rabadaan kariim magacaagana igu bilow. magacayga waa mune maxamed muusaf waxaana ka socdaa fasalka 7C dhammaantiin waxayna leeyahay rabadaan kariim munay anaguna rabadaan kariim baanu ku leenahay. in macalin cabdirasaaq iyo munayar baan u kala baxaya. munay su-aasha koowaad soomaaliga waxay ka odhanaysaa noocyada daaqa waxaa ka mid ah meel bannaan baad haystaa durujaa duunyo dalluun dareemo. waqtigu waa kuu bilaabmay munay 1 daqiiqana waad haysataa. waa biida waa biida oo duunya ku adkaysanaysaa haa waa biida ayay ardaydaasi tidhi waanay ku adkaysatay. jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal ardaydaasi may garanin. sacabkaa loo tumo. jawaabtu waxay sax ku tahay dhiida ayay jawaabtu sax ku tahay. markana waxaan jecelahay inay soo istaagto ardayad ka socota kala 7D. soo dhawow magacaaga igu bilow rabadaan kariim. salaamu kala waxaan tamaamid saafi suubana la saaxu ilaahi salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa canuun maxamed cabdilaahi kana socda 7D. canuunay rabadaan kariim. rabadaan kariim. mar kale soo dhawow macal cabdirasaaq iyo canuun yar ayaan u kala baxayaa. su-aashana waxay ka odhanaysaa ereyadan keebaa la macnaa qarsoon. ereyadan keebaa macnihiisu qarsoon yahay. aloosan, sheelan, halaanhal, hilow. waqtiguna waa kuu bilaabmay 1 daqiiqo ayaad haysataa. biida oo sheelan ah mid ku adkaysanaysa waad hubtaa. waqti badan baad haysataa ad go-aanka ku bedesho aad kaga fiirsato. ardayadaasi waa biida oo waan ku adkaysanaya ayay tidhi. jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa. sidaasi ay sax ku tahay. sacabkaa loo tumo. mar kale waxaan u yeedhi doonaa ardayad ka socota kala 7C weydiintooda u dambeysa maadada afka soomaaliga. ardayadda ila soo dhaweeya.
soo dhawow rabadaan kariim magacaagana igu bilow bismillaah magacaygu waa Huda Maxamed Faarax waxaan ka socdaa galaaska 7C rabadaan kariim hudayar iyo macalin cabdirasaaq ayaan u kala baxayaa si fiican shaashada waag su-aashana si fiican u dhageyso una dhago barbaar hanaqaad ku leexday duciyo habar qaadan waayey ciriyo heeguu noqdaaye hadhaysa dhul aan aqooni maxaa uu halaburku ku metelay barbaarta ka baydha marinka toosan ee waalidkooda dayacdaa sida meerisan ay tilmaamayaan wuxuu ku sheegay cirka iyo dhulka kala sarreeya qof nolosha ka dhacay daruur roobaad cid kale u da-aysa hadh aan loo baahnayn waqtigu waa kuu bilaabmay haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa eeda ma hubta waan hubaa ku adkaysanaysaa jawaabta su-aashaasi ayaanu daawadayaal wada eegi doonaa ardaydaasi may garanin sacabkaa loo tumo waxaan u yeedhi doonaa su-aasha u dambeysa maadada afka soomaaliga class 7D labada fasalba runtii aad ayay isugu dhow yihiin natiijadu waxay u muuqataa mid aan la saadaalin karin dhinaca guushu raacayso iyo dhinacay guul daradu raacayso mintoona soo dhawow rabadaan kariim magacaagana igu bilow bismillaah magacaygu waa Arab Ismaaciil kana socda fasalka 7D rabadaan kariim annaguna rabadaan mabruuk baanu ku leenahay macalin cabdirasaaq iyo weydiintiisa soomaaliga ee u dambeysa su-aasha afraad waxay ku odhanaysaa hunguri calaf baa xukuma hantina dhaqan baa shushuba dadkana hidihiisa guud wixii la hayaa dhex yaal waa ayo cidda hadlaysa ee dareenkooda abwaanku ticdan ku soo gudbinayay hooyada dhallinyarada dalka hal abuurka waqtigu waa kuu bilaabmay hal daqiiqo ayaad haysataa bismillaah su-aasha jawaabteedan isku daya waa eeda waa eeda ma hubtaa ha ku kalsoonta ha waan hubaa waana ku kalsoon ayay tidhi jawaabta su-aashaasi sidaasi ay sax ku tahay sacabkaa loo tumo daawadayaal maadadii afka soomaaligana intaasi ayaynu kaga imanaynaa ilaa hadda labada kalaas walba waxaa la weydiiyey 4 su-aalood waxaana laga weydiiyey maadooyinka soomaaliga iyo sayniska haddii aan ku horeeyo kalaas 7C oo weydiimaha ku hormaray 4 su-aalood oo la weydiiyey 3 ka mid a waa garan waayey hal su-aalna waa gartay halka kalaas 7D 4 su-aalood oo la weydiiyey 2 su-aaloodna uu garan waayey 2 su-aaloodna uu gartay waxaan uga gudbi doonaa oo inoogu xigi doontaa maadada tarbiyatul islaamiya waxaan jecelahay inuu soo istaago oo ay goobtan timaado ardayada ka socota kalaas 7C weydiinta u horeysa maadada tarbiyadda ardayda ila soo dhaweeya ugu horey soo dhawow rabadaan kariim magacaagana noogu bilow bismillaah magacaygu waa Marko Saar Muse kana socota fasalka 7C maanta waxaan tartami doonaa maadada tarbiyada marwo koosaarey waqti xasaasi lagu jiraa labadiina kalaas way isku dhow yihiin waliba kalaaskaaga natiijo la dheeriye tarbiyadda soo istaagto mid ka mid ah maadooyinka ugu adaga sidee isku tiin tarbiyadda mikrofoonka qaado sidee isku tiin tarbiyada iyo carabiga marka halka ingiliishka maadooyinka la eego in badan waxaan kaga fiicanahay maadada carabiga maadooyinka carabiga ku baxa ayaad kaga wanaagsan tahay sidan oo kale weli su'aalo ma lagu weydiiyey kamaradu dhinacan ka hayaan oo sidaa la soo wada hor fadhiyo maywili waa markii kuugu horeysay waayahay waxaan u kala bixi doonaa macalin cumar xasan macalinka tarbiyadda iyo ardayda بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها معنى وما يظهر منها وما ظهر منها معنى الاختيار الأول العينان الاختيار الثاني الأذنان الاختيار الثالث الذراعان الاختيار الرابع الوجه والكفين waqtigu waa kuu bilaabmay hal daqiiqana waad haysataa haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo eeda waa eeda waqti badani kaama tegin weli jaanis badan baad haysataa ad go-aankaaga ku bedesho ka feker ka fiirso
waa huba waad hubtaa oon loo noqonayn loo noqon maayo bay tiri ardaydaasi oo waan hubaa jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa jawaabta ardaydaasi may garanin sacabkaa loo tumo dhiida ayay su-aashaasi sax ku tahay dhiida ayay jawaabtaasi sax ku tahay waa tahay markana daawadayaal waxaan u yeedhi doonaa ardayd ka socota class 7D class 7D ayaan u yeedhi doonaa ardayd ka socota soo dhawow mikrofoonka qaado magacaaga igu bilow Ramadaan Kariim bismillaah magacayga waxa weeye Nashwa Kaysar Maxamed kana socda fasalka 7D Ramadaan Kariim bilaa Nashwa Kaysar mar kale waxaan ku leenahay stage-ka ku soo dhawow macalinka ayaan uga bixi doonaa oo too su'aasha u guda gali doonaa بسم الله الرحمن الرحيم سؤاشينا اللوات مادة التربية الإسلامية من أسباب محق بركة البيع من أسباب محق بركة في البيع والخسارة فيه اختيار الأول كتم الأسرار اختيار الثاني كتم الأرباح اختيار الثالث كتم العيوب اختيار الرابع كتم الفوائد وقت وكو بلا مي هل دقيقة أيضا هيستها لو جربت جوابي سأقول سيدا يا تفضل كسنتا نعم سيدا وطبطا ardaydaasi waa sida ay tiri waanan hubaa oo waan ku adkaysanaya jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadeel wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaasi ay sax ku tahay sacabkaa loo tuma ardayda markana waxaan u yeedhi doonaa ardayada su-aasha labaad ee maadada tarbiyatul islaamiya u soo istaagi doonta class 7C ila soo dhaweeya ardayda ardayda waxaan u sheegayaa in dhaqdhaqaaqa ay yareeyaan edebta iyo akhlaaqda wanaagsan ee ay ku fadhiyaan ay sidooda u fadhiyaan waxaan xasuusinayaa in daafaha dunida laga daawanayo arday fara badan oo iyaga la mida oo fursadan iyo jaaniskan aan helini ay daawanayaan oo casharada iyo su-aalaha la weydiinayo ay ka faa'iideysan doonaan kuna dabiqi doonaan imtixaanada ku soo socda soo dhawow Ramadaan Kariim magacaagana noogu bilow bismillaah magacaygu Najaad Rashiid Maxamed kana socda fasalka 7C Ramadaan Kariim Najaad Rashiid iyo waxaan u kala bixi doonaa Macallin Cumar Xasan iyo weydiintooda labaad بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ومعناه جنة أنه وقاية وحماية من مكان الفارق الاختيار الأول الأمراض والأسقام اختيار الثاني المعاصي والذنوب اختيار الثالث الفقر والحاجة اختيار الرابع الكبر والهرم waqtiguna waa ku bilaabmay hal daqiiqana waad haysataa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ومعنى جنة أنه وقاية وحماية من المكان الفارغ الأمراض والأسقام اختيار الثاني المعاصي والذنوب الاختيار الثالث الفقر والحاجة الاختيار الرابع الكبر والهرم waqtigu waa soconayaa su-aasha biida ku adkaysanaysa waad hubtaa ardaydaasi waan hubaa oo biida ayaan ku adkaysanaya ayay tiri jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaasi ay sax ku tahay sacabkaa loo tumo waxaan u yeedhi doonaa ardayd ka socota class 7D weydiintooda u dambaysa maadada tarbiyatul islaamiya ila soo dhaweeya ardayda soo dhawow Ramadaan Kariim magacaagana igu bilow Ramadaan mubaarak assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu Caaliya Maxamed Cabdullaahi kala socota fasalka 7D Caaliya iyo Macallin Cumar Xasan ayaan u kala bixi doonaa بسم الله الرحمن الرحيم سؤاشنا أفراد التربية الإسلامية من الأمور التي يثبت بها صيام شهر رمضان رؤية مكان الفارق اختيار الأول القمر اختيار الثاني الشمس اختيار الثالث الهلال اختيار الرابع النجم waqtigu waa ku bilaabmay hal daqiiqana waysta wadida ardaydaasi ilbiriqsiyo kooban ay ku qaateen inay jawaab bixiso mid ku kalsoonta
waa kalsoon jawaabta su-aashaasi ayaynu eegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaasay sax ku tahay sacabka ha loo tumo daawadayaal intaana waxaynu kaga iman doonaa maadadii saddexaad oo ah maadada tarbiyatul islaamiya guud ahaan waxaa la isweydiiyey 12 su-aalood kalaas walba wuxuu calafsaday oo la weydiiyey 6 su-aalood haddii aan ku horeeyo kalaas 7c 6 su-aalood oo la weydiiyey 4 ka mida way garan waayeen 2 ka midana way garteen oo way saxeen 7d 6 su-aalood oo la weydiiyey 2 ka mida way garan waayeen 4 ka midana way garteen oo way saxeen balse weli natiijada lama saadaalin karo sida horu dhacday fasalo kaleba inay iska daba yimaadaan labada kalaasba nasiib wacan ayaan leeyahay waxaa harsan 4 maado oo xukmin doonta midka gudbi doona iyo midka hadhi doona markan waxaan jecelahay inuu mikrofoonka qaato macallin Sakariye macallinka maadada Englishta kalaas 7c ayaan soo dhaweynayaa ardayga koobaad ee u soo istaagaya maadada Englishta kalaas 7c ardayda la soo dhaweeyo soo dhawow mikrofoonka qaado magacaaga ku bilow Ramadaan Kariim bismillaah magacaygu waa Ruwayda Xasan Maxamed ka socdana fasalka 7c Ramadaan Kariim Ruwayda anaguna Ramadaan Kariim baan ku leenahay macallin Sakariye iyo Ruwayda yar iyo weydiinta ayaanu kala baxaya Okay, question 1 waxay ku oranaysaa Ahmed is a fruit seller blank space fruit is always fresh choice A who choice B where choice C whose choice D whose waqtigu waa ku bilaabmay jawaabtu waa D jawaabtu waa D jawaabtu waa D ay ardaydaasi jiri mid ku kalsoonta hadda waqti badan baad haysataa ku kalsoonta waan ku kalsoonay tiri ardaydaasi jawaabta su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa daawadayaal jawaabta su-aashaasi sidaasi ay sax ku tahay sacabka loo tumo waxaan u yeedhi doonaa ardayd ka socota kalaas 7d ardayda koobaad ee u soo istaagaysa weydiinta maadada Englishta soo dhawow Ramadaan Kariim mikrofoonka qaado bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Muwaaf Xuseen waxaan ka socdaa fasalka 7d Ramadaan Kariim baan leeyahay anaguna Ramadaan mabruuk baan ku leenahay macallin Sakariye iyo su-aasha Okay, question 2 waxay ku leedahay Sumaya was furious with me for forgetting to pick her up furious means choice A excited choice B beautiful choice C happy choice D very angry waqtigu waa ku bilaabmay 1 daqiiqana waad haysataa toban ilbiriqsi oo kamida way tageen ustaadka ayaan ardaydu ka dalbatay inuu ugu soo celiyo Okay, Sumaya was furious with me for forgetting to pick her up the word furious means choice A excited choice B beautiful choice C happy choice D very angry bismillaah waa D waa D oo very angry ku adkaysanaysaa ardaydaasi D ayay ku adkaysatay jawaabta su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaasi ay sax ku tahay sacabka loo tumo ardayda mar kale waxaan u yeedhi doonaa kalaas 7c weydiintooda u dambeysa maadada Englishta soo dhawow Ramadaan Kariim magacaaga igu bilow mikrofoonka qaado magacaygu waa Raximo Xasan Maxamed kana soo socda fasalka 7c mar kale soo dhawow baan ku leenahay Raximaay macallin Sakariye iyo su-aashiisa Okay, question 2 if you compare house prices in the two areas it's quite amazing how different they are the word amazing means choice A unlikely choice B managed choice C extremely surprising choice D coming
waqtigu waa kuu bilaabmay hal daqiiqana waad haysataa C. waa c ku adkaysanaysa Ha. waqti badan ood go-aanka ku bedashood kaga fikirtood haysataa ku adkaysanaysa ardaydaasi sida ayaan ku adkaysanayay tidhi jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta sidaasay sax ku tahay sacabkaa loo tumo waxaan u yeedhi doonaa ardayadda usoo istaagaysa su-aasha u dambeysa maadada englishta class 7d ardayadda ah layla soo dhaweeyo soo dhawow rabadaan kariim magacaaga noogu bilow بسم الله مقعي وهذه عبد هذا كنا صعدت فصل كسبن لي رمضان كريم macalin sakariye iyo su-aashiisa u dambeysa Well, the final English question. Abdi is a pupil. Blank space. Exam results are good. Choice A, who. Choice B, whose. Choice C, where. Choice D, which. waqtigu waa kuu bilaabmay waqtigu waa socdaa deganaan kalsooni ka fiirsasho taxadar intuba waa muhiim حتى نسكت سؤال شباب بيدا waa biida ku kalsoontahay ardayadaasi waa biida oo waa ku kalsoonaya tidhi jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaas ayay sax ku tahay sacabkaa loo tumo intaana daawadayaal waxaynu kaga iman doonaa maadadii englishta guud ahaan waxaa lagu tartamay oo hadda inaga soo idlaaday 4 maado class walba maado kasta waxaa laga weydiiyey 2 su-aalood guud ahaan su-aalaha la isweydiiyey waa 16 su-aalood class walbana waxaa la weydiiyey 8 su-aalood haddii aan ku horeeyo class 7c 8 su-aalood oo la weydiiyey 4 ka mida way garan waayeen 4 ka midana way karteen class 7d 8 su-aalood oo la weydiiyey 2 ka mida way garan waayeen 6 ka midana way karteen intaynaan horu sii socon aynaan u gudbin maadada shanaad oo noqonaysa xisaabta qadar nasasho ayaynu u bixi doonaa kadibna waynu isu soo noqon doonaa بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وصفة حمدي كنا سعودة كلاس كسمة سي ما أنت هالكن وحن نتكاخرين دونا نشيد وحانيكو بالله مساسدة أرد وحانو نهي أقونتيو علميقاها لقو أبابيو هو أسلوبيو دلقات بسيا يو هو أمدو دندمي وأصحافا لو وأدكيستا يو هو لقو ودا أوغيه ubixii dalkow ubadkii dadkow indhihii dantoohow ma abaalgudnaa awrba awrka hore inta uu socduu ka dambana ogyuuhu ku itaalayaa niman yahow aflaxay aragka kaciyo jiilka iman ma tusna awood dhabo aya wacan ubixii dalkow ubadkii dadkow indhihii dantoohow ma abaalgudnaa dhibta aadamiga aafaysan iyo iimaha saddexan ee adduunka umay eelbaa ka daran haddaynaan ogaahan waa aqoon xumee arrin iyo qabiil ma ka aarsanaa ubixii dalkow ubadkii dadkow indhihii dantoohow ma abaalgudnaa waa tahay daawadayaal isu soo noqod wanaagsan mar kale waxaad leedihi soo dhawaada rabadaan kariim 4 maado oo hore ayaa inaga baxay hadda waxaynu u gudbi doonaa maadadii shanaad oo noqonaysa xisaabta natiijada 2 dhibcood ayaa la isdheeryahay oo 2 dhibcood waxaa horeeya class 7c maadada xisaabta macalinka qaabilsan سعد عبد الله يا جعلها إنه ميكروفون كقاطو كلاس 7C أيان ويرد دونا أرتيجا كوباد يوسو يستاجي يا مادة حسابتها أرتيجا وبهذا إنه ورقد يقلن استعماله ما دام حساب له قد قلي وأوديار وأنا استعمال كرا سودو ميكروفون كقاطو مقعقنا يقبلو
بسم الله مقاعد وفتحي محمد عبدي كنا صعد فصل كسمسي رمضان مبارك fadxiye mar kale soo dhow baan ku leenahay macali sacad ayaan ku wareejin doonaa iyo su-aasha. بسم الله وسؤال كوباد مادة حسابته. Find the value of n when 4n plus 4 is equal to 24. Choice A 4, choice B 12, choice C 5, choice D 6. waqtigu waa socdaa ardaydu qalin iyo warqad ayay qaadatay 30 ilbiriqsi oo ka mid ah ayaa tegey labaatan ilbiriqsi wax ka yar baa ardayda u hadhay siida oo fayfa mid ku adkaysanaysa ardaydaasi sida ayay tidhi jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa sidaasay sac ku tahay sacabkaa loo tumo markana waxaan u yeedhi doonaa ardayd ka socota kala 7d soo dhawow rabadaan kariim magacaagana noogu bilow magacayga waa sakiya cabdilaahi ibraahim kana socota fasalka 7d rabadaan kariim sakiyey mar kale soo dhow baan ku leenahay macali sacad iyo weydiinta iyo sakiye yar ayaanu kala baxayaa waayahay su-aasha labaad xisaabta waa tan after 5 years the age of a girl will be 18 how old is she now? A 17 years, B 13 years, C 12 years, D 6 years. waqtigu waa kuu bilaabmay waqtigu waa kuu bilaabmay waqtigu waa kuu bilaabmay halkii daqiiqo aad haysatay hadda waa kala baran yahay ardaydu qalin iyo warqad ayay qaadatay xisaabteeda ayay wadataa oo way ka shaqaynaysaa maxsuul ayaa u soo baxay waynu ka sugi doonaa bismillah su-aashu waa biida jawaabtu waa biida ayay tidhi mad ku adkaysanaysaa haa waan ku adkaysanaya ayay tidhi jawaabta su-aashaasi ayaynu wada eegi doonaa jawaabta sidaas ay sax ku tahay saxabkaa loo tumo runtii labada arday ee ka jawaabayba qalinkooda iyo warqadda ayay isticmaaleen jawaabaha halkaa ku qoran waxay kaga kalsooni bateen inay qalin iyo warqad isticmaalaan jawaabta ku soo baxdayna ay halkaasi kaga dhawaaqaan guulna way uga dhammaatay waa ku hambalyeynayaa markan waxaan u yeedhayaa ardayd ka socota class 7C class 7C iyo weydiintooda labaad ee maadada xisaabta soo dhawow rabadaan kariim بسم الله أنا مقاعد اسمه فيصل خلاص كنا صعد فصل كسانسي asma faysale mar kale rabadaan kariim baan ku leenahay soo dhow baan ku leenahay in macallin sacad baan ku wareejin doonaa waa su-aasha saddexaad ee xisaabta evaluate the variable x divided by 5 x divided by 5 is equal to 5 calaamadaas waxa weeyaan waa divide weeyaan x divided by 5 is equal to 5 choice A 25 choice B 18 choice C 10 choice D 4 waqtigu waa kuu bilaabmay qalin iyo waraaq ay isticmaalaysaa ardaydaasi oo xisaabta halkan ku qoran ay isku dayaysaa inay ka shaqayso si maxsuul wanaagsan ugu soo baxo natiijadana ay guul uga keento su-aashu waxay odhanaysaa evaluate the variable x divided by 5 is equal to 5 choice A 25 choice B 18 choice C 10 choice D 4
waqtigu waa kooban yahay waqtigu waa kooban yahay بسم الله هذا سؤال شو اسكت eeda ku adkaysanaysaa ku kalsoonta eeda ayay tiri ardayadaasi jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaas ay sax ku tahay sacabkaa loo tumo markana waxaan u yeedhi doonaa ardayd ka socota class 7D waa ardayda u dambeysa maadada xisaabta maxamed ka socda gaaska 7D rabadaan kariim annaguna rabadaan mabruuk ayaan ku leenahay macalin sacad iyo weydiinta u dambeysa maadada xisaabta weydiinta u dambeysa waxay odhanaysaa solve this equation 2y is equal to y plus 6 a 2 b 4 c 6 d 8 waqtigu waa kuu bilaabmay waqtigu waa bilaabmay ardayadu xisaabta ayay ka shaqeynaysaa oo warqad iyo qalin ayay isticmaaleysaa b waa b ku adkaysanta udubtaa aada uga fiirso ku adkaysanaysa b b ayay ardaydaasi ku adkaysatay jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa ardayadaasi may garanin sacabkaa loo tumo jawaabtu c ayay ahayd c ayay ahayd jawaabtu halkaana daawadayaal waxaynu kaga gudbi doonaa maadadii xisaabta oo ahayd maadadii shanaad ee labadan fasal ee 7D iyo 7C ay ku tartabeen kalaas walba waxaa la weydiiyey 10 su-aalood guud ahaan 20 su-aalood baa la isweydiiyey haddii aan u yimaado kalaas 7C 10 su-aalood oo la weydiiyey waxay garteen oo saxeen 6 su-aalood oo ka mid a 4 su-aaloodna way garan waayeen kalaas 7D haddii aan u yimaado 10 su-aalood oo la weydiiyey 7 su-aalood ayay saxeen oo garteen 3 ka midana way garan waayeen waxaynu ga socon doonaa maadada socialka oo noqonaysa midii lixaad ee lagu tartamo macalin cabdirasaaq ayaan jecelayn mikrofoonka qaato ardayd ka socota kalaas 7C ayaan u yeedhi doonaa ila soo dhaweeya ardayda soo dhawow mikrofoonka qaado rabadaan kariim magacaagana igu bilow السلام عليكم أنا مقعي هي خلود شيخ إسماعيل إبراهيم أقص على 7C حيد الله هي رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بألف خير waad mahadsantahay anaguna sidoo kale rabadaan mabruuk baanu ku leenahay alla dhammaantiinba bisha barakada badan khayrkeeda hayna siiyo macal cabdirasaaq ayaa ku wareejinaya bismillahi raxmaani raxiim ardayda tartamaysaa iyagoo hayar jabaqda hayr joojiyaan jabaqda su-aasha kuu soo baxday koowaad socialka waxay ka odhanaysaa the person who studies the human race is blank space linguistic archaeologist historian anthropologist أنا سؤال جوابت اسكت يا linguist ardaydaasi waa iga boobtay xataa hadal waa ii diiday ilbiriqsiyo kooban bay kaga jawaabtay miyaad ku kalsoontay waan hubaa waana ku kalsoonaya tidhi jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadeel wadeegi doonaa may garanin ardaydaasi sacabkaa loo tumo jawaabtu dhiida ayay sax ku ahayd way mahadsan tahay markana waxaan jecelahay inaad ila soo dhaweysaan ardayd ka socota kalaas 7D kalaas 7D soo dhawow rabadaan kariim mikrofoonka qaado magacaagana noogu bilow بسم الله مقعي وحفصة فيصل محمود كلا سعوتا كلاسك 7D xafsa faysal oo 7D ka socotaan mar kale waxaan ku leenahay soo dhawow macalinka macalin cabdirasaaq ayaan mar kale ku celinaya iyo weydiinta su-aasha labaad ee maadada socialka ah what is the main economic activity of the Bantus people what is the main economic activities of the Bantu and hunting farming trading herding waqtigu waa kuu bilaabmay su-aasha isku daya waa bida waa bida waad ku adkaysanaysaa waad hubtaa
ardayadaas waxay tidhi bida oo farmina ayaan ku adkaysanayaa jawaabta su-aashaasi aynu daawadayaal wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaasi ay sax ku tahay sacabkaa loo tumo mar kale waxaan u yeedhi doonaa ardayd ka socota kala 7c ardayda halayla soo dhaweeyo soo dhawow rabadaan kariim magacaaga noogu bilow shaashada adeegisa السلام عليكم مقعيق ورحمة مصطفى جامع كصعد كلاس كسبسي رمضان مبارك raxmay mar kale soo dhawow baanu ku leenahay macalin cabdirasaaq iyo raxma iyo weydiinta ayaanu kala baxaya su-aasha saddexaad raxmada waxay ku odhanaysaa what is the slowest means of transport what is the slowest means of transport air transport road transport railway transport water transport waqtigu waa kuu bilaabmay waqtigu waa kuu bilaabmay waqtigu waa soconayaa siida waad ku adkaysanaysaa waad hubtaa jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa sida ayay ardayadaasi ku adkaysatay jawaabta su-aashaasi may garanin saxabkaa loo tuma ardayda jawaabtu waxay sax ku ahayd d-da ayay sax ku ahayd markana waxaan u yeedhi doonaa ardayd ka socota kala 7d kala 7d oo aada moodo in ay guusha kusii suqayso ayaan u yeedhi doonaa soo dhawow soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واحد مصطفى محمد علمي كان صعتها فصل ك7D رمضان مبارك بالله anaguna rabadaan mubaarak ayaanu ku leenahay macalin cabdirasaaq iyo ayaanu kala bixi doonaa ardayda su-aasha afraad ee maadada socialka waxay ku odhanaysaa what is the main use of air transport what is the main use of air transport choice A to transport goods choice B to transport people choice C to transport perishable items choice D to transport food waqtigu waa kuu bilaabmay hal daqiiqo ayaad haysataa waxaan ka hadal bal laga soo celiso what is the main use of air transport to transport goods to transport people to transport perishable items to transport food jawaabta saxda markaan isku dayo waa question B ku adkaysanaysaa haa waan ku adkaysanaya ay tiri ardaydaasi jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaasay sax ku tahay sacabkaa loo tumo daawadayaal intaa waxaynu kaga iman doonaa maadadii sooshiyaalka oo noqonaysa midii 6aad ee labadan fasal ay ku tartameen guud ahaan su-aalaha la isweydiiyey waa 24 su-aalood 24 su-aalood ayaa la isweydiiyey galaas walba waxaa la weydiiyey 12 su-aalood haddaan ku horeeyo kala 7c 12 su-aalood ayaa la weydiiyey 6 ka mida waa gartay 6 ka midana waa garan waaye haddii aan u soo noqdo kala 7d 12 su-aalood ayaa la weydiiyey 9 ka mida waa saxay 3 ka midana waa garan waaye waxaa loo dhaadhacay oo aynu iminka gudagalaynaa maadadii u dambeysay oo ah carabi waxaan u yeedhi doonaa ardayd ka socota kala 7c soo dhawow rabadaan kariim magacaagana igu bilow بسم الله مقعي ومرس عيد مركنا سعود كلا 7C رمضان مبارك waan ku soo dhaweynaynaa mar kale rabadaan kariim baan ku leenahay shaashada sadaad weegaysaa waa weydiintii u dambeysay waqti xasaasiya ayaa lagu jiraa waxaan ku wareejin doonaa macalin cumar xasan cabdiraxmaan iyo weydiinta واي بسم الله الرحمن الرحيم سؤاشينا كوباد اللغة العربية يدعم الغني المسكين يدعم الغني المسكين إعراب كلمة يدعم هي اختيار الأول فعل مضارع مرفوع اختيار الثاني
فعل مضارع مبني. اختيار الثالث فعل مضارع منصوب. اختيار الرابع فعل مضارع مجزوم. waqtigu waa kuu bilaabmay hal daqiiqo ayaad haysataa. bismillaah jawaabta su-aasha haddaan isku dayo waa eeda. waa eeda weli waqti badan baad haysataa aad kaga fiirsato aad ku fikirto aad go-aankaa ku bedesho. go-aanka ma bedelayo. ma bedelis la bay siraadayadaasi ma bedelayo. jawaabta su-aashaasi ayaan daawadeel wadeegi doonaa. sidaasi ay sax ku tahay sacabkaa loo tumo. waxaan u yeedhi doonaa ardayd ka socota class 7D weydiinta koowaad ee maadada carabiga 7D. ardayda ila soo dhaweeya. soo dhawow ayaan ku leeyahay Ramadaan Kariim. bismillaah magacaygu waa Marwe Ismaaciil Cakuush waxaan ka socdaa fasalka 7D waxaan dad ummadda Soomaaliga meel kasta ay joogto waxaan leeyahay Ramadaan Kariim. Ramadaan Kariim Ramadaan Kariim ayaan anaguna ku leenahay. macal Cumar ayaan soo dhaweynayaa. waayahay su-aasheena labaad اللغة العربية سؤال لبعض كلمة حب معناها هي احترام. اختيار الأول احترام. اختيار الثاني مودة. اختيار الثالث رحمة. اختيار الرابع قسوة. waqtigu waa kuu bilaabmay. haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waxa weeye siida. waa siida waad hubtaa waad hubtaa waan hubaayay tidhi jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa. jawaabta su-aashaasi may garanin ardaydaasi sacabkaa loo tumo. biida ayay jawaabtaasi sax ku ahayd. biida ayay sax ku ahayd. markan waxaan u yeedhi doonaa class 7C. class 7C ayaan u yeedhi doonaa. waa su-aashoodii u dambeysay ee 14aad oo noqonaysa mid carabiya. soo dhawow Ramadaan Kariim magacaagana igu bilow. bismillaah magacaygu waa Mushtaaq Maxamed Xayd kana socota fasalka 7C waxaan leeyahay Ramadaan Kariim. mushtaaq yar anaguna waxaan ku leenahay Ramadaan mabruuk. macal Cumar ayaa ku wareejinaya. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤاشنا الصدحات اللغة العربية كلمة يهتم معناها هي اختيار الأول يترك. اختيار الثاني يبذل. اختيار الثالث يعتني. اختيار الرابع يفهم. waqtigu waa kuu bilaabmay. bismillaah haddaan su-aashaa isku dayo waa siida oo yactiniya. waa siida waad ku kalsoontahay waad hubtaa waqti badan oo aad go-aan ku bedesho oo aad ayaad haysataad kaga fikirto. ku adkeysanaya ardaydaasi waan ku adkeysanayay tidhi siida ayay ku adkeysatay. jawaabta su-aashaasi sidaas ay sax ku tahay sacabkaa loo tumo. markana waxaan u yeedhi doonaa ardayada u dambaysa 7D iyo su-aashooda u dambaysa oo noqonaysa midii 14aad ee la weydiiyo. 7D ardayda u dambaysa maadada luqatul carabiya. ardayda ila soo dhaweeya. soo dhawow Ramadaan Kariim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Muna Jamaal Daawud waxaanan ka socdaa fasalka 7D waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim. annaguna Ramadaan mubaarak baanu ku leenahay. macal Cabdirasaaq macalin Cumar iyo su-aasha u dambaysa maadada carabiga ayaan ku soo dhaweynayaa. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤاشنا وضم بيصة اللغة العربية المبتدأ هو اختيار الأول اسم مرفوع وقع عليه فعل الفاعل. اختيار الثاني اسم مرفوع وقع عليه مفعول به. اختيار الثالث اسم مرفوع وقع في أول الجملة. اختيار الرابع اسم مرفوع وقع في آخر الجملة. waqtigu waa kuu bilaabmay hal daqiiqo ayaad haysataa waana su-aashii u dambeysay. haddaan su-aashaas isku dayo waa diida. waa diida
waqti baad haysataa waqti badan baad weliba haysataa ka feker ka fiirso adoo degan waa dhiida waad ku adkaysanaysaa ardaydaasi dhiida ayay tidhi waa ku adkaysanayaa jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi may garanin ardaydaasi sacabkaa loo tumo sacabkaa loo tumo sida ayay ardaydaasi tidhi sida ayay jawaabtaasi sax ku ahayd sida may garanin mar kale sacabka ugu celiya ardayda walow ardaydaasi oo ka tirsan sabandhi ay garan weyday haddana natiijadu waxba may bedelin tartankeenu guud ahaan sidaasuu inoogu soo xidhmay waxaa la isweydiiyey 28 su-aalood oo lagu kala calaf qaaday balse natiijadu aad ayaa la isugu dhowiyay hal dhibic keliya ayaa lagu kala bediyey haddii aan ku horeeyo galaas 7c 14 su-aalood ayaa la weydiiyey 14 su-aalood ee la weydiiyey 8 ka mida way garteen oo way saxeen 6 su-aalood oo ka midana way garan waayeen haddii aan u yimaado 7d waxaa la weydiiyey 14 su-aalood 9 ka mida way garteen oo way saxeen 5 ka midana way garan waayeen natiijadu waxay ka dhigan tahay in kala 7d uu hal dhibic ku guuleystay sacabkaa loo tumo sidoo kale 7c oo dadaal badan muujiyey isagana sacabkaa loo tumo waad mahadsantihiin labadiinu waa tartanteen aqoontiini baad bannaanka keenteen labadiinuba waad guulaysateen balse midun baa gudbay waxaan rajaynayaa inaad soo hambaliyan doontaan maadaama iskuul ka socotaan weliba isku qayb aad ka socotaan oo 100 ka wada tirsantihiin waxaan rajaynayaa inaad intan idinku ka xoog badan aqoontiinu ka sareyso insha Allah fasaladana ka sareeya inaad insha Allah tartanka dambe sanadka xiga haddii Allah ina gaarsiiyo aynu sugu iman doono waxaan u mahadnaqayaa macallimiinta qiimaha iyo qaayaha mudan ee inta inoo samriyay ee inoo diyaarinayay ee khaladaadka ilaalinayay ee dhinac garsoorka ka waad mahadsantiin baardileenay waxaan u mahadnaqayaa maamulka iskuulka oo halkan soo taagan oo ugu horeeyo gudoomiyaha tartankani Saciid Carab aad bay isaguna u mahadsantiin waxaan u mahadnaqayaa bahda kamarmaanada sida qaayaha iyo qiimaha la ila shaqeynaya maxamed jamaal jirde fanbirsi bushaar bashka cabdirasaaq shaam injineerada oo aan ka xusayo injineer maxamed deeq janagale injineer cabdifataax xaashi injineer Ilyas iyo sidoo kale injineer Cabdiraxmaan dhamaantiinba waad mahadsantiin daawadayaal waxa iga xasuusina tartanku inuu ku sii siqayo in la soo gabagabeeyo wareegii koobaad 29 fasal baa guud ahaan ku tartamaya hal fasal oo ID wareega xiga ayuu nasiibkiisu siiyeen oo sii fadhiyo 28 fasal oo kale ayaa ku tartamayay hadda waxa tartamay 24 fasal ayaa tartamay 12 kamida ayaa calafsaday inay wareega xiga u gudbaan halka 12 kale aan oran karo iyagana tartanka ay ka hadheen oo qaarkood dadaal badan oo ay muujiyeen nasiibka ayaa ka heliyay balse dhamaantood waxaan qiraynaa inay dadaal badan akhlaaq iyo aqoon sare ay soo bandhigeen waad mahadsantiin ayaan idin leeyahay class 7D ayaa isaguna maanta ku biiray kalaasyadaasi guuleystay daawadayaal tartanka ujeedada iyo budhigiisu waxa weeye in kor loogu qaado tayada aqoonta iyo sidoo kale in ardaydu ay muujiyaan awoodooda aqooneed ee lagu dhigo dugsiyada Nuuraddiin waad mahadsantiin barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Andara intay ku kulmi doono barnaamij la mid ah dhammaantiinba daawadayaal waxaan idin leenahay alla khayrkeeda hayna siiyo bishan khayrka iyo barakada badan leh nabad qab iyo caafimaad iyo cimri dheerna haynagu gaadhsiiyo maalinta reynreynta iyo farxadda badan ee ciidda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ahaye meel laga aflaxo ahayaha iyo cilmiga udubdhiga ugu mudan ahaye meel laga aflaxo ahayaha iyo cilmiga udubdhiga ugu mudan
dugsiyada nuuraddiin iskuulis dadaal ruuxa muujiya daayinkuna hareer galo ayaa darajo gaadho laga wada dambeeyaa daliili waxaan u haystaa dugsiyada aqoontae laga furay dalkeenani nuuraddiin halkuu degey dayaxiyo cadceediyo xidigii dagaaruu dusha sare ka dhaafo cid kastaoo ku dayataa daba socodka mooye degan lama istaagaan dugsiyada nuuraddiin daada hoose iyo dhaxa ka durduuranaysa iyo barayaasha daadihin dugsi sare markay tahay dalad iyo xijaabley diin lagu barbaarshiyo wiilasha u dareereen la isku darin galaasyada militari digniin helay sidoodii diyaareen habsaamayn daqiiqado dariifyada ka joogaan daajiyaan tacliintana macallimiin digri iyo daacad iyo hufnaan iyo isku daray adaabtii dadka looga baahnaa nuuraddiin halkuu degey cid kasta oo ku dayata daba socodka mooye degan lama istaagaan